محمد موسى ديري وزيرka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland oo hadal ka jeediyay munaasabad loo qabtay furitaanka maalmaha ka hortagga tacdiyada loo geysto haweenka oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa xisbiyada mucaaradka uga digay inay khalkhal galiyaan nabadgelyada isla markaasina ay bulshada u horseedaan dhibaatooyin waxaan wasiirku xusay inaan cidnaba looga dul qaadan karin inay nabadgelyada dalka khalkhal galiso isla markaasina ay maraan dariiq sharci darra sidoo kale wasiirka wasaaradda warfaafintu waxa uu fariin u diray madax dhaqameedka iyo waxgaradka dalka oo soo jeediyay inay kaalintooda ka qaataan adkeynta iyo ilaalinta nabadgelyada isla markaasina ka waantoobaan warbaahinta ay soo hor fadhiisanayaan ee ay kaga hadlayaan arrimo aan dalka muhiim u ahayn hadii aan nabadgelyo la helin oo dadka lagu dhiirigeliyo dhibaato dhacdo ismayno dhaqan mayno cibaadaysan mayno yani wax adoo wax la qabsanaya xoolayn noqonay waxaan nahay ummad daayad oo doonaysa inay adduunka mid noqoto talabkii mar inaba burburay wadinka arkayadee dhaqaynu muxuu ahaa aynu wadaagi jiray muxuu qarannimada inta meelaha uu kala fadhiyo waa ogsoontii waa la aqoonsaday aqoonsigiisa ku taagay waa arkaysaa haddana wax alla waxay ku qabanayaan waayo markay farax ka baxda innagu intaynu isku tashanaynu dhisanayno gacmaheennaynu ku dhisanayno intaynu isu nimid baynu wax taagnoynu ku noolnahayo maanta laynagu kuharaya ciraaq iyo dalalkii dhaqaalaha ahaa yaman iyo liibiya iyo waa ogsoontii waa la dhisi geliyahay adduun weynihii oo dhan bay iskugu tegeen waa la dhisi kari laayay iyagoo taasi ku dhacday waxaan la yidhaha dowladnimada ilaahay baa bixiya ambiyuu soo diri jiray ambiyada nebiyu ayuu soo diri jiray markay dee arrintu faraxa leelbaxnimadiyani wuxuu yahay mooyaane inkas cidda soo diro nebi maxamed baa ugu dambeeyey intuu ilaahay soo dirayaa ma jirto tu ummadi samaysatay baa loo baahaya ilaa berigaa waa la kala dhexlaaya ilaa berigaasi waa la kala dhexlaaya dowladnimadii ورسولجيسو صادرو محمد ugu dambeeyay maanta waxa looga baahan yahay xajisano waxa ay gacmeeyna ku dhisano waxa ay isku tagnay ay odayaasha guurtidii ay kooga ka ahaayeen raga wixii ka nool dhismaha qaranka waxaan idinku boorinayaa inaynu nabadgelyada ku faraadeyno war nimanka tartamaya nooc kuway doonaan ha ahaadaan nimanka tartamaya cod bay ku leeyihiin dadkan dagaal iyo xabadu dhiibid iyo muxuu ahaa dhagax dhiibid kuma laha miyay ku leeyihiin dee kuma laha cod bay nagu leeyihiin soo maaha war cod raabtaad u diyaargarowdaan noo kaalaya walayna siin kii nasiibku u dhiibaana fuul ummaddu haydinka nabad gasho ummadda daaya oo naxdinta ka daaya ummadda daaya oo muxuu ahaa khalgelintaya naxdinta ka daaya aynu hoggaan dhaqameedkeedii maanta 24 sano iyagoo cumaamadii iyo koofiyadii ilaa ka soo taagan yihiin way hadlayaan oo maxay ka hadlayaan wallaahi haddii aan sidaa leeyahay ma inaan arki jirin dee nin hoggaan dhaqameed oo dadka halkaa u soo jooga hanjaba warlord iyo ina yaroo da'yar iyo waxba hanjabi jira waxaan leeyahay ku soo noqda kaalintaad lahaydeen iyo geedka hortiisa iyo dhaqanka ku soo noqda ummadda dejiya oo ilaaliya taasaa laydinka baahaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin geesta kale waxaa madashaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland injineer Xuseen Ibraahim Buuni iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland Marwo Yurub Abiib Cabdi oo iyaguna ku dheeraaday qiimaha ay leedahay nabadgelyadu iyagoo shacabka Soomaaliland u soo jeediyay inay ilaashadaan nabadgelyada dadka doonaya in adduunku hormado oo kala yaaco istiro dhibaata dhacdo la isreeyo ala ku siga ninka doonaya waa inuu nabad ku doono dadku dhiigooda idinma weydiisana foorkeedii weydiistay afkaagii kii aad siisay kula noqotay hadduu ku guulaystay hadduu ku guuldaraysto laakiin qaranka deeridoo dhiigaaga isi kuma oran daayarta waxaan u sheegay inay intaasi kaaga filan tahay intaasaa kaaga filan qofka siyaasiga xisbi kasta ha ahaado wuxuu doonayaa cod kursiga waxa lagu kala helayaa cod waxaad ogtihiin oo dib xasuusan kartaan anagu waddu kulmiyo aan ahayn inuu siiraayo 8 cod kaga tegay kursiga siiraayo markay dadkii la yaabeen ay yidhaahdeen
kulmiyana xusbi mucaarad noqonaya oo ka xoog badnaa kulmiye muu jirin uduboo dhinac walbaanu ka dardarnay oo waddanka haysato nu ka xoog badnay laakiin dee dowlad bay ahayd waa la xili jiray ragga kulmiye madheeraa loo dhaadhicin jiray xabsigaa loo taxaabi jiray maxamed xaashiyo ida cabdi garoowe iyo waxaa la yidhahdaa dad badan xasanku dad badan baa la xidhay ilaa odayaasha iminka nabadda ka hadlaya qofka hadduu qaranka ka hor yimaado ilaa aynu isku yaacno dee sharki buu xidhaya qofna sharciga kama weyne talada dalku labada xisbi mucaarad iyo xukuumadda kama dhaxaysa xukuumadda dalkan hogaamisa xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdeen anaguna fulintiisa nahay ma yeelayso cid kasta ha noqotee ciddii falqallo nabadgelyo darro amaba nabadgelyo darro sababaya dalkan ka sameeyays yidhaahda dowladdu gacan birle wax kaga qabanaysa mana yeelayso ciday doonta ha noqotee marka runtii waxaanu ugu baaqaynaa xasuusinaynaana cid kastoo hawshaa gacanta kula jirtaa runtii inay faraha kala baxdo